soo dhawaada saaxiibayaal walaalkiin Aadan Nuur Xasan insha Allah maanta barnaamijkeena diyaaleen waxaan rabaa inaan kula wadaago course dhameystiran aad ku baranaysid muuqaal samaynta ama video editing-ka. Course-kan wuxuu ku saabsan yahay dhanka telefonaadka ayuu ku saabsan yahay. Course-kan waxaa ka faa'iideysan karo asxaabta isticmaasha telefonaadka Android-ka way ka faa'iideysan karaan programka aan ku sharxi doono course-kan. Sidoo kale asxaabta iPhone-ka isticmaalana way isticmaali karaan programkan aan ku sharxi doono course-ka insha Allah. Marka course-kan waxaan rajayn doonaa dhammaantiin inaad ka wada faa'iideysan doontiin. Programkan aynu ku baran doono course-ka waxaa lagu magacaabaa VideoLib ee lagu magacaabaa. Marka programkan waa multi-track. Sidoo kale programka muuqaal ilaa iyo waxaad ku samayn kartaa quality-giis gaaraya 4K. Marka programkan runtii waa idin soo xulay. Programkan marka si aad ula soo degtid waxaad u baahan tahay haddii aad Android aad isticmaashid inaad soo furtid Google Play Store-ka. sidoo kale haddii aad iPhone isticmaashidna Apple Store-ka soo fur meesha ka raadi insha Allah. Marka programka VideoLib-ka laba qaab waad u soo degsan kartaa haddii aad Android aad isticmaashid sideeda oo kale haddii aad tahay. VideoLib-ka programka waa la iibiyaa kan Play Store-ka ku jira haddii aad la degtid xayeysiinna wuu leeyahay application-ka sidoo kale watermark-na wuu leeyahay. Marka programka midka aan isticmaali doono waa mid VIP ah. haddii aad midkaas aad u baahan tahay waxaan ku soo dhigi doonaa groupka Telegram-ka ayaan ku soo dhigi doonaa. Groupka Telegram-kana haddii aadan wali ku soo biirin groupka Telegram-ka linkiisa waxaad ka heli doontaa insha Allah description-ka waad ka heli doontaa. sidoo kale comment ugu horeyna waan kugu soo biin gareyn doonaa. Marka dadka iPhone-ka isticmaalana programka official-kiisa markaynu imaano website-kiisa VideoLib-ka waad u jeedinayaan filayaa Android-na qof uu isticmaali kara telephone Android wato sidoo kale dadka iPhone-ka watan way isticmaali karaan. Marka asxaabta Android-ka isticmaala haddii aad u baahan tahay midka VIP-ga aan isticmaali doono oo Pro-ga ah waxaan ku soo dhigi doonaa asigoo application-ka Pro ah groupka Telegram-ka ayaan ku soo dhigi doonaa. Groupka Telegram-ka linkiisa waxaad ka helaysaa description-ka waad ka helaysaa comment ugu horeyna waad ka helaysaa. haddii aad u baahan tahay midka original-ka caadiga oo xayeysiinta ay waxyaabo ay ku furfuran yihiin Google Play Store-ka soo gal waxaad ku qortaa VideoLib aad ku qoraysaa. application-ka waa midkan aad u jeedin midkan waad la soo degi kartaa. marka application-ka markaad la soo degtid waxaan u gudgali doonaa insha Allah barashada application-ka ayaan u gudgali doonaa. ugu horreyn marka intaan u gudgalin barashada application-ka waxaan idinka codsanayaa muuqaalkan inaad like saartiin. like tahay ka xasdina saaxiibayaal dad badan ayuu gaarsiinaya YouTube-ka. marka waxaan ka codsanayaa si qof kale walaalkaaga ugu faa'iideysto course-kan muuqaalka inaad like saartid. marka like muuqaalka waxyaabo badan ay u tartaa anigana way dhiirigelinaysaa koorsooyin kale oo noocan waan keeni doonaa insha Allah. muuqaalka markastoo like-tiis ay badato anna waan ku farxayaa runtii. waxaan isku dayaa marka midkii aan soo sameeyay course-ka aan soo sameeyay mid ka duwan quality ahaan iyo waxyaabo kale inaan soo raadiyo. marka igu dhiirigeliya like saara muuqaalka insha Allah bal isku daya muuqaalkan like-tiis inaad gaarsiisiin 1k oo like ah. hadda waa kun qof way daawataa muuqaaladeeda adi waxa ugu badan dadka daawada adi almost wuxuu gaaraa kun ayuu gaaraa. marka isku daya insha Allah hadiiba aad u baahan tahay inaad baratid muuqaal samaynta waxaa jira marka asxaab kalena u baahan inay bartaan aanan weli kanaalkan aanan ku soo biirin almost marka dad badan uu sii gaarsiinaya like-ta bal isku daya muuqaalka like ina saartiin insha Allah. waxaan u gudbi doonaa course-ka marka application-ka markaad ku shubatid waa soo furi doontaa VideoLib-ka. marka application-ka VideoLib-ka markaad soo furtid wajahadiis ugu horeysa ama interface-kiisa si tan ay u eg tahay. application-ka marka si aad muuqaalaad ugu edit gareysid waxaad ku dhufataa qaybtan ay ku qoran tahay calaamada gaduuda new project ay ku qoran tahay calaamada plus-ka ah. marka waxaad ku dhufanaysaa new project aad ku dhufanaysaa. application-ka marka new project aad ku soo dhufatid qaybta gudaha aad u soo gali doontaa application-ka marka qaybta gudaha u soo gashid wuxuu ku leeyahay marka qoraalka meesha ku saaran tab the plus below to the add media wuxuu ku leeyahay marka si aan waxyaabo aan u edit gareyno waxaad ku soo darsataa media ayuu ku leeyahay. median waxaa la lahaa sawiraanta videoyada codadka waxyaabahaas media la isku dhahaa. marka si aan waxyaabo aan u edit gareyno muuqaal aan u sameyno waxaan ku dhufanayaa calaamada plus-ka aan ku dhufanayaa. calaamada plus-ka markaad ku dhufatid marka waxaad soo dooran kartaa sawirooyinka aad soo dooran kartaa muuqaalada aad soo dooran kartaa almost marka
halna waad usoo dooran kartaa. Haddii aad u baahan tahay waxaad samayn kartaa muuqaalo badan hal mar waad soo wada dooran kartaa. Almost markaa waad ujeedin ayaan filayaa intaa muuqaal ayaan soo doortay. Kadib waxaan ku dhufanayaa qaybtan hoose ay ku qoran tahay add to project. Qaybtan hoose ayaan ku dhufanayaa. ugu dambeyn marka programka sidan ayuu kugu soo muuqan doonaa waxyaabaha muuqaalada aad soo dooratay gebi ahaanba. qaybtan timeline ayuu ku keeni doonaa lagu jarjarayo muuqaalka, lagu hagaajinayo muuqaalka, waxyaabaha colorska lagu saarayo, effectiga, qoraalada haddii ahaan lahaydba qaybtan ayuu ku keeni doonaa muuqaalkaaga oo idilba ama muuqaalada aad soo dooratay dhammaantooda. ugu horeyn marka saaxiibayaal intaynu gudagalin jarjaridda muuqaalka waxaynu ka bilaabi doonaa inaynu saxno cabirka muuqaalka. hadba platformyada wax lagu upload gareeyo ayay ku xiran tahay. tusaalahan tiktoker haddii aad tahay oo kale muuqaal portrait inaad samaysid 9:16 lagu magacaabo. youtube haddii aad tahay muuqaal oo landscape inaad samaysid cabirkiisa uu yahay 16:9. youtube-ka tiktok-ga way kala duwan yihiin. sidoo kale instagram-ka cabir uu leeyahay, facebook-ga cabir uu leeyahay. marka cabirkaasi aad u saxdid waxaad imaataa marka qaybtan ay ku qoran tahay canvas-ka aad imaanaysaa. canvas-ka markaad imaatid sidoo kale waxaad doorataa formatka aad dooranaysaa. formatka markaad dooratid meeshan waxaa kugu jiro size ay kugu jiro. tiktoker haddii aad tahay midkan dooro ay ku qoran tahay 9:16. sidoo kale youtube-ka haddii aad u wadid 16:9. instagram haddii aad u wadid 1:1 aspect ratio. sidoo kale muuqaalo cinematic haddii aad u baahan tahay cabirkooda inta ayuu ku yaalaa. almost markaan aad waxaan dooranayaa qaybtan 16:9 ayaan dooranayaa. ugu horeyn marka intaada muuqaalkaaga tallaabada ugu horeyso muuqaal markii la sameynayo ama computer wax ku edit garay ama mobile wax ku edit garay waa inaad cabirka muuqaalka aad ka bilowdaa, iska saxdaa cabirkaas. marka sidoo kale haddii aad u baahan tahay programkan video libka adigoo isticmaalayo qaabkee muuqaalka loo jarjaraa. marka muuqaalka aad u baahan tahay inaad jarjartid ayaad imaanaysaa. tusaalahaan muuqaalkan oo kale ayaan imaanayaa. muuqaalka waad dooranaysaa aad u baahan tahay inaad jarjartid. kadib muuqaalka markaad ku dhufatid meeshan waxaa kuu soo saarmi doona calaamad split, calaamada aad ujeedin calaamada ayaad click ku siinaysaa. marka waad ujeedin ayaan filaya hadda muuqaalkan waynu kala jarnay, laba qayb ayaynu ka kala dhignay. baartigaad u baahan tahay aad imaanaysaa, calaamadaanad ku dhufanaysaa. waa split waaye, ii kala jar waa muuqaalka. indicator lagu magacaabo calaamadan gaduuda ah meeshan saaran waxay ku tilmaamaysaa muuqaalka meesha aad joogtid. kadib calaamadaanad ku dhufanaysaa. marka sidaan ayaad u jarjari kartaa adigoo isticmaalaya programka video lib. clipka aad u baahan tahay muuqaalka aad u baahan tahay qaabkan ayaad u jarjari kartaa. tusaalehaan haddii waxyaabo qaladaad aad samaysay oo kale, hadda muuqaalkan aad ayaan u jarjarnay, muuqaalkan aad u wada jeediin. haddii aad waxyaabo qaladaad aad samaysid meeshan waxaad ku haysataa calaamad undo ayaad ku haysataa oo waxyaabaha qaladaadka aad samaysay aad dib ugu soo laaban kartid. waad ujeedin ayaan filaya muuqaalkii hadda aynu wada jarjarnay haddana dib aynu ugu laabanay, hal clip aynu ka dhignay. haddii aad muuqaalkii aad jarjartay haddana aad u baahan tahay waxyaabihii aad samaysay inaad dib aad ugu laabatid calaamadan redo ayaad ku dhufanaysaa. waxyaabihii aad samaysay aad dib ugu laaban kartaa haddana. hadda clipkii aynu jarjarnay ayanu haddana dib ugu soo laabanay. marka sidaan ayaad u jarjari kartaa adigoo isticmaalaya programka video lib. clipka aad u baahan tahay clipka dooro, kadib calaamada meeshan kuu saaran waa split. aaday u fududahay runtii qaabka loo jarjaraayo muuqaalada adigoo isticmaalaya programkan video lib. marka haddii aad u baahan tahay marka clipyadaada ka mid ah inaad delete garaysid, qaabkee u delete kartaa marka ama remove garaysid. clipka waad dooranaysaa. tusaalahaan clipkan u baahanahay inaan deleedo waad dooranaysaa. kadib iconskan ama toolskan meeshan kuu saaran ayaa gacantaada midigta waad soo jiidaysaa. waxaad ka dooranaysaa marka iconkan removeka aad ka dooranaysaa. waad ujeedin ayaan filaya meeshan clip ayaa ka baxay hadda. haddii aad u baahan tahay clipka inaad dib u soo celiso calaamadan aad ku dhufanaysaa oo ah undo-ga. marka qaybtan ayaad ka remove garaynaysaa clipkii aad u baahan tahay clipyadaada. tusaalahaan midkan oo kale midkan baaskiilka ugu horeeya ayaan u baahanahay inaan deleedo. iconskan ayaan soo jiidayaa, gacanteeda dhanka midigta ayaan usoo jiidaya. kadib waxaan ka dooranaya remove ayaan ka dooranaya. waad ujeedin ayaan filaya clipkii yarkii baaskiilkii waday asaa ugu horeeya wuu ka baxay meesha. marka qaabkan ayaad u samayn kartaa, splitna u samayn kartaa, sidoo kale kadna qaabkan aad u samayn kartaa ama deletena qaabkan aad u samayn kartaa. sidoo kale marka qaabkeed u samayn kartaa adigoo isticmaalaya programkan video libka wax loo yaqaano transition.
transition af Soomaaliyan waxaa la lahaa kala gudbin aan dhihi karaa. Tusaale waxaa waaye inaad u sameysid muuqaal markuu dhamaado muuqaalka kale uu soo galaado xogaa markaa rabti inaad zoom aad sameysid timeline-kan labadaada gacmood isticmaal. Hadda tusaalaan clipkan inta ayuu ku dhamaanayaa, clip kale ayaa soo galaya. Marka waxaan rabaa dadka daawanaya inay xogaa muuqaalka aan u qurxin ayaan dhihi karaa transition-ka. waxyaabaha effectiska muuqaalada markaa ku dareysid waa qurxin. Marka si aad u qurxi sidoo kale labadan clip markay isdhexgalayaan aad si qurux badan aad u sameysid transition aa lagu magacaabaa marka waxyaabaha u dhexeeya. Marka transition-ka si aad u sameysid waxaad ku dhufanaysaa calaamadda u dhexeyso ayaad ku dhufanaysaa oo cadaanka aad u wada jeediin calaamadan ayaad ku dhufanaysaa. Kadib waxaa kuu soo baxaya transition aad u badan haddii aad u baahan tahay dissolve oo kale, sidoo kale haddii aad u baahan tahay fading, sidoo kale waxyaabaha transitionaadka inta ay ku wada saaran yihiin dhammaantood aad ka wada helaysid programka video libkan. Tusaale ahaan meeshan waxaan ka dooranayaa dissolvigan oo kale aan ka dooranayaa. Marka durationka ama waqtiga uu kusoo galay transitionkaas haddii aad u baahan tahay inaad badisid calaamadda meeshan kuu saaran ayaad ka badin kartaa. Haddii aad u baahan tahay inaad yareysidna hoos ayaad usoo dhigaysaa. Marka mar walba oo secondskan ay bataan waa mar walba transitionkaada waqtigiisa uu bato waa. Haddii aad soo yareysid waa mar walba uu yaraado waa. Tusaale ahaan xogaa waxaan ka dhigayaa intaan ka dhigayaa kadib waxaan sameynayaa marka play aan dhahno bal muuqaalkan daawada qaabka transitionkan uu kusoo galay in wada aragno muuqaalka kale. Calaamadan aad ka play gareyn kartaa meesha kuu saaran, muuqaalkaada aad ka daawan kartaa qaybta canvas-ka muuqaalka kuu saaran. Waad u jeedin ayaan filayaa muuqaalkan dissolve ayuu sameynayaa qaab qurux badan ayuu kusoo galay. Haddii aad u baahan tahay midkaan haddii aadan jeclaysan waad iska bedeli kartaa, waad ku dhufanaysaa transitionka meesha kadib mid kale ayaad soo dooran kartaa. Haddana midkaan ayaan dooranaynaa kadib waynu daawanaynaa calaamadan aan ka play gareynaynaa. Waad u jeedin ayaan filayaa qaab qurux badan ayuu kusoo galay. haddii aad u baahan tahay asigana waad iska bedeli kartaa. asigana qaabkan waa midkan. Marka aniga waxaan dooranayaa qaybtan dissolve-ga ayaan dooranayaa. Marka adigoo isticmaalaya programka video libka qaabkan aad transitionka u sameyn kartaa. Labada clip iconka u dhaxeeya dooro kadib transitionka aad u baahan tahay ku soo dar. sidoo kale haddii aad u baahan tahay muuqaalkaaga inaad ku soo dartid qoraal, aad u baahan tahay title inaad ka dhigtid ama subtitle inaad ka dhigtid, muuqaalkaaga positionka aad u baahan tahay inaad ku soo dartid ayaad imaanaysaa qoraalka. kadib waxaad ka dooranaysaa iconka meeshan kuu saaran, textiga ayaad dooranaysaa. kadib qoraalkaad u baahan tahay aad qoraysaa. qoraalka meesha kuu saaranna double tap ayuu ku leeyahay ama laba mar click fartaada ku sii kadib waxyaabaha aad u baahan tahay aad qoraysaa. marka qoraalkaad u baahan tahay markaad qortid calaamadan saxda gaduudka meesha kuu saaran ku dhufo. sidoo kale marka qoraalkaaga waxyaabo badan ayaad ka bedeli kartaa. haddii aad u baahan tahay qoraalkaaga waxyaabo kale inaad ku dartid ama waxyaabo inaad ka tirtirtid calaamada edit-ka aad kusoo laabanaysaa qoraalka qaybtan hoose. haddii aad u baahan tahay qoraalkaaga farta inaad ka bedeshid qaybtan farta ayaad imaanaysaa. fartii aad u baahan tahay ayaad dooranaysaa. waad ujeedinayaan filayaa faraha laakiin waxay u baahan yihiin inaad la soo degtid adigoo internet aad isticmaalaysid. faraha mid walba waxay u baahan yihiin inaad la soo degtid. marka almost marka qaybtan qoraal ama far style badan ayaa ku jira. marka styleka aad u baahan tahay ayaad la soo degi doontaa, waad isticmaali doontaa insha Allah. colorka haddii aad u baahan tahay farta inaad ka bedeshid qaybtan colorka ayaad imaanaysaa. colorka aad u baahan tahay aad ka dhigan kartaa. waad ujeedinayaan filayaa intaanoo color ayaa ku diyaarsan. colorkii aad u baahan tahay ayaad isticmaalaysaa. sidoo kale haddii aad u baahan tahay qaybtan waxaa waaye opacity. opacity macnaha waxaa waaye qoraalkaaga waxaan dhihi karaa opacity adi inaad isku dhex qastid. isku dhex qasmaa dhihi karaa. muhiimaddu waxaa waaye inaynu aragno waxaan practical waaye. opacity waxaa qoraalkaaga xoogaa qaabka usoo muuqanayo inaad ka dhintid iftiinka oo kale. hadda qoraalka marka intaan yareeyo muuqaalku dhexgelaya qoraalkeena. xoogaa markaa tirada ay yaraato waa mar walba muuqaalkeena qoraalka aragtidiisa xoogaa ay daciifto waaye. mar walba aynu badino waa mar walba oo qoraalka si toos ah uu soo muuqdo waa.
marka qaybtan opacity haddii aad u baahantahay waxaad u isticmaali kartaa like watermark ahaan, watermark reference aan dhihi karaa. marka saaxiibayaal waxyaabaha qaarkood af soomaaligooda xoogaa haddii aan keeni waayo bal cafwan, laakiin waxaan rajeynayaa inaad wada fahantiin dhammaantiina. marka qaybtan opacity sidaan ayaad u isticmaali kartaa. waxyaabo badan ayaad ku sameyn kartaa marka qaybtan qoraalka alignment haddii aad u baahan tahay qoraalka qaybtaad u baahan tahay alignmentigiis inaad saxdid, waxaad u isticmaali kartaa qaybta alignmentiga markuu qoraalkaaga uu fara badan yahay. shadow ayaad u sameyn kartaa qoraalkaaga. sidoo kale qaybtan duplicate waa qoraalkaada ayaad ka badin kartaa haddii aad u baahan tahay waad iska remove gareyn kartaa. almuhim qaybta marka qoraalka waxyaabo badan ayaad ku sameyn kartaa programka video libka. marka qoraalkaad u baahan tahay markaad soo dooratid waxaad sameyn kartaa marka qoraalkaaga waad yareyn kartaa adigoo isticmaalaya labada farood, kadibna meeshaad u baahan tahay muuqaalka ayaad ka dhigi kartaa. ani hadda waxaan ka dhigayaa qaybtan centerka ayaan ka dhigayaa. programka video libka asigana wuxuu ku siinayaa alignment ayuu ku siinayaa programka. hadda qaybtan centerka ayaan dhigayaa. marka sidoo kale waxaad sameyn kartaa qoraalkaaga muuqaalka oo idil ayaad la ekeysiin kartaa haddii aad u baahan tahay ilaa muuqaalka intuu socdo waxaad sameyn kartaa muuqaalka ayaad la ekeysiin kartaa. haddii aad u baahan tahay wax yar qoraalkaaga inuu socdona sidaan oo kale ayaad sameyn kartaa. waad ujeedin ayaan filayaa. hadda aynu isla wada daawano intaan qoraalkeena wax yar aynu ka dhignay. waad ujeedin ayaan filayaa qoraalkeena wuu soo galay haddana hore ayuu ka baxayaa. marka wax badan inuu haddii aad u baahan tahay inuu joogo qoraalkaaga waad dheereynaysaa, muuqaalka ayaad la ekeysinaysaa adigoo isticmaala labada falaarood ee geesaha ah. sidoo kale marka haddii aad u baahan tahay muuqaalka aad edit gareynaysid inaad kusoo dartid cod ama music midkaad u baahan tahay, waxaad isticmaalaysaa iconka meesha kuu saaran ay ku qoran tahay music ayaad isticmaalaysaa. qaybtan waxaad ku dhufataa marka music ayaad ku dhufanaysaa. qaybta music markaad ku dhufatay marka telefoonka gudihiisa aad usoo gudbi doontaa. marka meeshay ku yaalaan ayaad kasoo dooran doontaa insha allah. marka ani hadda waxaan soo dooranayaa midkan ayaan soo dooranayaa. kadib marka musicaada markaad ku qanacsan tahay waxaad ku dhufanaysaa intuu aad ku dhageysan kartaa. marka haddii aad ku qanacsan tahay waxaad ku dhufanaysaa calaamadan dhanka kore ayaad ku dhufanaysaa. dhan markaad ku dhufatay marka haddii aad u baahan tahay musicaada muuqaalka oo idin inaad la ekeysid waad soo jiidi kartaa, farta ayaad dhab ku siinaysaa. kadib qaybtaad u baahan tahay ama dhanka midigta aad u jiidi kartaa ama bidixda aad u jiidi kartaa. marka waad ujeedin ayaan filayaa. sidoo kale marka qaybta music haddii aad u baahan tahay xoogaa background music wax loo yaqaano inaad ka dhigtid xoogaa daciif inaad ka dhigtid, waxaad sameyn kartaa marka musicaada asigoo kuu dooran yahay qaybtan volumeka imo, kadibna volumeka intaad u baahan tahay waad ka dhimi kartaa ama tiradaad u baahan tahay aad ka dhigi kartaa. sidoo kale music aad soo dooratay waxaad sameyn kartaa wax loo yaqaano fade in ama fade out. fade in waxaa la lahaa musicaada markuu soo gala inuu si daciifnimo uu kusoo galo, markuu dhammaanayo inuu si daciifnimo uu ku dhammaado. marka si aad u sameysid waxyaabahaas qaybtan waxaad doorataa marka fade-ka aad dooranaysaa. waxaad u sameyn kartaa wax loo yaqaano fade in ayuu leeyahay programka. musican markuu soo galay inuu ku dhammaado musica markuu soo galay inuu ku bilowdo si daciifnimo. marka calaamadan ayaad soo jiidaysaa inta second u baahan tahay inuu si daciifnimo uu ku socdo ayaad dooranaysaa. fade outkan waxaa waaye musicaas markuu dhammaanayo qaabkuu ku dhammaan lahaa si daciifnimo inuu ku dhammaado uusan hal mar kala go-in. ugu horey marka waxaynu sameynaynaa musica waynu kala jaraynaa muuqaalkan la ekeysiinaynaa. ugu horey marka si aad u kala jartid musicaada dooro, kadib calaamadan ku dhufo qaybtan kuu saaran, kadib intaan damba remove ayaanu iska leenahay. qaabka wax loo jarjarayo qaabka remove loo sameynayo inuu soo baranay. kadib qaybta music aynu kusoo laabanaynaa. hadda waxaynu sameynaa marka layers ayanu sameynay. tusaalaha music oo kale haddii aad u baahan tahay inaad dib aad u aragtid waxyaabo badan aad ugu bedeshid qaybta iconka meeshan kuu saaran ayaad dooranaysaa. kadib waxaynu sameynaynaa marka qaybta fade-ka aynu kusoo laabanaynaa. fade out waxaa waaye musicaas markuu dhammaanayo qaabkuu ku dhammaan lahaa waaye. xoogaa waxaan u baahannahay si daciifnimo inuu ku dhammaado. kadib sekamadan u baahanay ayaan ka dhigayaa. marka aynu isla wada dhegeysano qaabkuu ku dhammaanayo hadda musican. waad ujeedin ayaan filaya musican hadda wuxuu ku dhammaaday qaab daciifnimo ayuu ku dhammaaday almost. marka intaan aynu ka kala jarno kadib midkan hore aynu iska dileedaynaa.
sidoo kale midkan kale aynu soo jiidaynaa asigana waxaynu sameynaynaa muuqaalka aynu la ekeysiinaynaa. sidoo kale marka qaybtan fade-ka aynu kusoo laabanaynaa. fade out-kan waxaanu ku sameynaynaa minus ku sameynaynaa. kadib midkan aynu muuqaalka la ekeysiinaynaa. qaybtii hore aan ka jaray waxay ahayd qayb aamusan ayay ahayd, marka music aad u dheer ayuu ahaa. hadda ayaan u sameynaynaa marka fade out-ka. qaybta waxaan ku dhufanayaa fade out ayaan leeyahay. sekamadan u baahanahay ayaan meeshan ka dooranayaa. marka hadda muuqaalkeena sidaan ayaan ugu soo darnay music. sidoo kale qaabka hadda music ayaan ugu soo darnay aad codna ugu soo dari kartaa. waxyaabo badan ayaad ku soo dari kartaa, marka dhowr cod haddii aad u baahan tahay waad ku soo dari kartaa. waad ujeedin ayaan filaya hadda musica markuu soo galaayo qaab daciifnimo ayuu kusoo galayaa. sidoo kale marka haddii aad u baahan tahay marka saaxiibayaal inaad sameysid wax loo yaqaano slow motion ama fast motion, waad ku sameyn kartaa programkan video libka. muuqaalkaad u baahan tahay inaad ku sameysid slow motionka ee dooranaysaa. bal hadda muuqaalkan aynu kala jarno ugu horeyn si aynu slow motion aynu sameyno. qaybtan aynu ka kala jaraynaa. qaybtan ayaan dooranaya split ayaan leeyahay. qaybtan dhexe ayaan waxaan u baahanay inaanu ku sameyno wax loo yaqaano slow motion. marka inta muuqaalkaad u baahan tahay inaad slow motion aad ku sameysay ama clipka intaad u baahan tahay kala jaro ugu horeyn, ama clipka dhan haddii aad u baahan tahay inaad slow motion aad ku sameysid waxba ha kala jareen. ani hadda marka clipkan intan waa normal, waa iska caadi waay. inta markuu imaado waxaan rabaa inuu noqdo slow motion. intaanaan dooranaya marka qaybtan waxaan soo furaya speedka ayaan soo furayaa. kadib waxaan ka dhigayaa marka slow motion ayaan ka dhigaya. marka qaybtan aad ka maamuli kartaa, fastna waad ka dhigi kartaa, slowna waad ka dhigi kartaa. marka slow motion ayaan ka dhigayaa hadda. bal hadda clipkan intaan aynu isla wada daawano. hadda clipku waa normal, markuu meeshan soo gaaro wuxuu noqonayaa clipkan slow motion ayuu noqonayaa. waad ujeedin ayaan filayaa inkastoo shaashada ay yaraan doonto hadhow si fiican uma arki doontiin, balse slow motion qaabkan aad u sameyn kartaa. haddii aad u baahan tahay fast motion inaad sameysid, clipka dooro qaybta speedka kusoo laabo. kadib waxaa sameysaa marka haddii gacantaada qaybta bidixda aad usoo wadid waa slow motion, dhanka midigta haddii aad u wadid waxaa waaye fast motion waaye. fast motionna aynu ka dhigno clipka aynu isla wada aragno. waad ujeedin ayaan filaya marka saaxiibayaal slow motion iyo fast motionna qaabkan ayaad u sameyn kartaa adigoo isticmaalaya programka video libka. sidoo kale marka saaxiibayaal haddii aad u baahan tahay muuqaal inaad ku sameysid duplicate ama muuqaalkaas inaad badisid haddii aad u baahan tahay, waxaa sameyn kartaa duplicate. waxaa waaye muuqaalkaas dhowr maraad kusoo celcelin kartaa. adii si aad u aragtiin waxaynu sameyneynaa muuqaalkan hadda ii dooran waxaan sameynayaa mid kale ayaan ka sameynayaa isla asigii oo kale. muuqaalka ayaad dooranaysaa. qaybtan waxaa kuu saara marka duplicate ayaa kuu saaran. duplicate haddii aan ku dhufto wuu badanayaa muuqaalkaas. mid la mid ayaa la sameyn doonaa. duplicate ayaan ku dhufanaya. waad ujeedin ayaan filaya mid kale ayaan noo sameeyo midkan. haddana mar kale haddii aan ku dhufto waa mid kale ayaan noo sameeyay. almuhim marka haddii aad u baahan tahay clip dhowr mar inaad kusoo celisid adigoo sameynaya muuqaal, duplicate-kan ayaad isticmaali doontaa insha allah. marka qaabkan ayaad u sameyn kartaa duplicate-ka. calaamadan duplicate-ka la isticmaala insha allah. sidoo kale marka saaxiibayaal haddii aad u baahan tahay adigoo isticmaalaya programkan video libka, qaabkee u sameyn karta wax loo yaqaano color correction. marka color correction si aad u sameysid ugu horeyn marka clipkaad u baahan tahay dooro. kadib qaybtan waxaa soo furtaa marka filterka soo fur. filterka markaa soo furtid meeshan waxaa kugu diyaarsan dhowr color ayaa kugu diyaarsan. waad ujeedin ayaan filaya before sidaan ayuu ahaa, after sidaan ayuu noqday. marka colorkii aad u baahan tahay ayaad saari kartaa. dhowr color ayaa meeshan kugu diyaarsan. muuqaalkaaga colorkii aad u baahan tahay ayaad saari kartaa. tusaalahaan colorkan ayaa i qanciyay. haddii aad u baahan tahay marka colorkii qaybtan ayaad ka yareyn kartaa saaritaan colorka la saaray muuqaalka waad ku badin kartaa waadna ka yareyn kartaa. waad ujeedin ayaan filayaa marka colore macquul ayaa ku jiro. marka
color correction programkan sidaan ayaad u samayn kartaa. qaybtan marka waxaa soo furtaa filterka muuqaalkaad u baahan tahay ugu horeyn dooro. markuu kuu dooran yahay qaybta filterka soo fur kadibna colorkaad u baahan tahay dooro. haddii aad u baahan tahay markaa si manual ah inaad u samaysid aadan u baahnayn waxyaabaha meesha ku diyaarsan inaadan sameynin, tooliska wuu ku siinayaa programka video libka. clipkaad u baahan tahay dooro kadib qaybtan waxaa soo furtaa adjustiga soo fur. meesha waxaa kugu diyaarsan marka exposurekii, contrastigii, brightnessigii, saturationka, vibrancyga, warmka, wax walba intay kugu diyaarsan yihiin. tusaale ahaan haddii aad u baahan tahay muuqaalkaaga iftiinka inaad ku kordhiso oo kale brightness xoogaa waanu kordhin karnaa, waan ujeedinayaan filayaa. marka sidoo kale programka waadna ku samayn kartaa si manual ahaan ah. qaybtan adjustiga ayaad dooranaysaa insha allah. marka labadan qaabba waad u samayn kartaa color correction adigoo isticmaalaya programka video libka. marka saaxiibayaal sidoo kale haddii aad u baahan tahay muuqaalkaaga inaad ku samaysid wax loo yaqaano transformka uu soo hoosgalaya. haddii aad u baahan tahay muuqaalkaaga gedi inaad ka dhigtid, almuhim transformka si aan u fahanno wax walba af Soomaali kama dhigi karno. marka transformka si aad waxyaabo badan aad ugu fahantiin iconka ama waxaad dooratiin muuqaalka doorta. kadib qaybtan waxaad soo furtiin transform soo fura. transformka waxaad ka samayn kartaa muuqaalkaaga, waxaad ka dhigi kartaa Philip. muuqaalkaaga waad gedin kartaa, waad ujeedinayaan filaya muuqaalka aad ka gedin kartaa meeshan. mirrorka waxaa waaye waxaad ka samayn kartaa asigana muuqaalka cagsigiisa aan dhigi karaa. muuqaalka siduu ahaa aad cagsigiisa aad ka dhigi kartaa. almuhim sidoo kale waxaad samayn kartaa wax loo yaqaano rotate. muuqaalkaaga aad gedin kartaa. sidoo kale waxaad samayn kartaa muuqaalkaaga haddii uusan shaashada la ekeen, tusaale ahaan xoogaa gacanta aan ku yarey muuqaalkan, waxaad samayn kartaa fit ayaad ku samayn kartaa muuqaalkaaga. waad ujeedinayaan filaya muuqaal noocan oo kale ama sawirooyin sidaan oo kale projectigaada hadday ku jiraan. qaybta waxaad soo furtiin clipkaas ayaad dooranaysaa. qaybtan transformka ayaad soo furaysaa, fit ayaad ka dhigaysaa. fit micnaheed waxay tahay clipka ama shayga kuu dooran iyo la ekeysii waa marka cabirka ii dooran. marka transformka waxyaabo badan ayaad ku samayn kartiin adigoo isticmaalaya programka video libka. waxaan rajeynayaa marka qaybta transformkana inaad wada fahanteen dhammaantiina. sidoo kale marka haddii aad u baahantahay inaad samaysid adigoo isticmaalaya programka video libka green screen muuqaala inaad isticmaashid, aad green screenka aad ka qaadid, waad ka qaadi kartaa asigana. ugu horeen green screenka wuxuu ku shaqeynayaa marka muuqaal isdul saaran ayuu ku shaqeynayaa. tusaale ahaan isla muuqaalkan waxaan soo dul saari doonaa muuqaal kale. si aad usoo dul saartid marka waxaad samayn kartaa calaamadan balaaska meeshan kuu saaran, dooro kadib muuqaalkii green screenka ahaa soo dooro kadib add to project dheh. markaa dhahday marka muuqaalka marka si aad muuqaal kale aad u dul saartid waxaad samaynaysaa gacanta aad dhab ku siinaysaa. waxaad samaynaysaa marka muuqaalkaad u baahantay inaad dul saartid ayaad ku dul aadinaysaa. markaad ku dul aadisid marka hadda muuqaalka inta ayuu noo fuulay, qayb sare ayuu saaran yahay. marka muuqaaladan qaybtan hoose durationkooda aad u yar, almost marka intaan ayuu ku fadhiistay qaybta kore. marka green screenka si aad ugu qaadid ugu horey marka clipka dooro green screenka. kadib qaybtan waxaad doorataa marka chromeka ayaad dooranaysaa, chromekeyga. kadib meeshan wuxuu ku siinayaa marka eyedropper ayuu ku siinayaa marka colorka greenka ayaad dooranaysaa. kadib qaybtan intensityga soo fur. waxaad samaynaysaa marka inti kugu habboon adigaa yaqaano waad dooranaysaa. inkastoo hadda midkan hadda uusan ku fiicnayn qaybta chromekeyga hadda aynu soo dooranay. almuhim marka qaybtan eyedropperka ayaad ugu horey marka green screenka clip ku siinaysaa. kadib intensityga ayaad asigana waad ka yareyn kartaa ama waad ka badin kartaa. bal hadda aynu isla wada daawano. waad ujeedinayaan filaya marka adigoo isticmaalaya programka video libka qaabkan ayaad u isticmaali kartaa wax loo yaqaano chroma key ama green screen. marka saaxiibayaal waxaan rajeynayaa dhammaantiin inaad wada fahanteen dhowrkan qodob oo muuqaal sameynta asaasiga ama base u ah inaad wada fahanteen dhammaantiina. marka programkan video libka waxyaabo intaan ka badan oo aad ku sameyn kartaa haddii aad sii gudgashid. sidoo kale haddii aad u baahan tahay waxyaabo kale inaad kasii baratid qaybtan waxaad ku dhufanaysaa buugga meesha kuu saaran qaybtan sare ayaad ku dhufanaysaa. meesha marka programka wuu ku barayaa marka qaabka loo isticmaalo. marka coursekan qofkii dhammaysto
intan waxba uma baahna wax saas ugu baahan yahay ma lahan almiya marka inta hadda aan soo yara sharxay qodobyadan waxay aas-aasi waa marka qofka aanan muuqaal sameyntaba aanan ku wanaagsaneyn waxyaabo badan hindhaha ayay u fureysaa ugu dambeyn marka saaxiibayaal waxaan kusoo gabgabeyn doonaa muuqaalkaaga wax walba uu ku saabsan yahay markaad dhammaysid sida muuqaalkaaga markaad jarjaratid cod aad saartid muuqaalka transition aad u sameysid music background aad u sameysid wax walba markaad dhammaysid waxaad u baahan tahay muuqaalkaaga inaad dibadda aad usoo saartid si aad social media meeshaad u baahan tahay aad u dhigtid waxaad ku dhufanaysaa marka qaybtan sare ay ku qoran tahay export ayaad ku dhufanaysaa programka marka ilaa iyo resolution wuxuu ku siinayaa 4K ayaad ku daabici kartaa muuqaalkaaga qaybtan frame per second-ka ilaa wuxuu ku siinayaa 60 frame per second ayuu ku siinayaa runtii aad ayuu u wanaagsan yahay qaybta resolution-ka programmi qaarkood waxay leeyihiin 1080 pixel ay leeyihiin sida midka CapCut-ka oo kale CapCut weli looma soo saarin programka 4K weli looma soo saarin almost marka intaad u baahan tahay resolution-ka aad dooranaysaa markaad dooratid frame rate-kan waxaa waaye mar walba frame rate-kaaga uu yaraado oo mar walba quality muuqaalkaaga uu yaraado mar walba uu bato frame rate-ka oo mar walba xajmiga ama culeyska muuqaalkaas uu badanayo marka frame rate-ka aad u baahan tahay aad dooranaysaa kadib qaybtan waxaad ku dhufanaysaa sare save-ka aad ku dhufanaysaa programka wuxuu ku sameynayaa marka exporting sidaas ayuu u sameynayaa marka waxaan rajeynayaa saaxiibayaal guud ahaan kooriskan inta aan kusoo gabgabeyn doonaa programkan lagu magacaabo videolib mar kale aan kusoo xasuusiyo programka midka hadda aan isticmaalayo haddii aad u baahan tahay oo VIP-ga groupka telegramka ayaan kusoo dhigi doonaa groupka telegramkan haddii aadan linkiis weli aadan kusoo birin descriptionka waad ka helaysaa commentiga hore waad ka helaysaa hanaga iloobina marka saaxiibayaal like hanaga iloobina asxaabtiin u sheer gareeya koorsooyin si aan u keeno mid kuwan la mid ah walaalkiin aadam nuur xasan oo idin leh asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu